Maxaad ka taqaanaa ismaamul goboleedka Catalonia ee dalka Spain? Muuqaalkan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa ismaamul goboleedka Catalonia ee dalka Spain. Magaca gobolkan waa Catalonia, afka Catalonia waxaana ku yaala dalka Spain. Magaalada Barcelona ayaa u ah caasimad. Waxa uuna dhacaa waqooyi bari ee Spain, wuxuuna xuduud la leeyahay dalalka France iyo Andorra, sidoo kale xeebta badda Mediterranean-ka. Cabirka guud ee Catalonia waa 32,000 oo kiiloomitir oo isku weeran. Tirada dadka in ka badan 7.5 milyan oo qof. Luqadda rasmiga ah ee gobolkan waa Catalan iyo Spanish. Lacagta laga adeegsadana waa Euro, wuxuuna ka kooban yahay magaalooyinka sida Barcelona, Girona iyo Tarragona, waana xarumo taariikhi ah oo leh farshaxan iyo dhismooyin caan ah sida Sagrada Familia. Catalonia waa mid ka mid ah gobollada ugu dhaqaalaha badan Spain. Magaalada Barcelona waa xarun ganacsi, dalxiis iyo warshado. Dhaqaalaha waxaa ka mid ah warshadaha, dalxiiska, adeegyada iyo ganacsiga caalamiga ah. Ku dhawaaqidda madax-bannaani kaliya ma aha shardi lagu noqdo qaran rasmi ah. Waxaa jira tillaabooyin habraacyo badan oo loo raaco. Gobolka Catalonia oo ku yaala waqooyi bari dalka Spain waa mid ka mid ah meelaha ugu taariikhda dheer, dhaqaalaha xooggan iyo dhaqaalaha gaarka ah ee ku dhex jira dalkaas. Caasimadiisu waa magaalada Barcelona, taasoo caan ku ah farshaxanka, kubadda cagta iyo dhaqaalaha dalxiiska. Dadku si weyn ayay u jecel yihiin waxayna ku faanaan dhaqankooda oo ka duwan yahay kan kale ee Isbaanishka intiisa kale. Markii hore Catalonia waxay ahayd dhul ay maamulaan madaxyo yaryar oo la oran jiray amiirada. Awoodda badanaa waxaa lahaa amiirka guud ee Barcelona, kaasoo markii dambe noqday hogaamiyaha guud ee gobollada kale. Qarnigii 12aad, boqoradii la oran jiray Petronila ee ka soo jeeday Aragon ayaa guursatay amiirkii guud ee Barcelona, Ramon Berenguer. Isku darkaas ayaa dhaliyay boqortooyada Aragon, taasoo keentay in Catalonia ay noqoto qayb muhiim ah oo ka mid ah boqortooyadii Aragon, balse weli sii haysato dhaqankeeda iyo xeerarkeeda. Kadib markii Isabella iyo Ferdinandkii labaad isguursadeen qarnigii 15aad, Spain waxay noqotay dal midaysan, waxaana Catalonia si rasmi ah ugu biirtay boqortooyada Spain. Dhibaatooyinkii iyo xiisadihii intii lagu jiray qarnigii 17aad iyo 18aad, Catalonia marar badan waxay isku dayday inay dib u hesho madax-bannaanideeda, balse dagaallo ay galeen ayay ku lumiyeen xuquuqdii madax-bannaani. Markii uu taliyihii Spain ee Francisco Franco xukunka qabtay sanadkii 1939, afka Catalan waa la mamnuucay, dhaqankoodana waa la caburiyay. Laakiin markii Franco dhintay 1975, Spain waxay yeelatay dastuur cusub, waxaana Catalonia dib loogu celiyay maamul hoosaad. Dhaqaalaha maanta ee gobolka Catalonia waa mid ka mid ah gobollada ugu dhaqaalaha badan Spain. Waxay bixisaa in ka badan 20% dhaqaalaha guud ee dalka. Magaalada Barcelona waa xarun warshadeed, ganacsi iyo dalxiis, taasoo lagu tilmaamo mid ka mid ah magaalooyinka ugu soo jiidashada badan qaaradda Yurub. Aftidii madax-bannaanida ee sanadii 2017, markii laga soo bilaabo sanadii 2006, Catalonia waxay bilowday inay codsato awooddeeda, laakiin maxkamadda dastuuriga ee Spain way diiday qaybo badan oo ka mid ah dastuurkii ay Catalonia samaysatay sababo dhalisay caro dareen iyo madax-bannaani. Sanadii 2017, madaxweynaha Catalonia oo markaas ahaa Carles Puigdemont ayaa ku dhawaaqay in la qabto afti madax-bannaani. Aftidaas waxa ay dhacday 1 Oktoobar 2017, waxaana ku codeeyay in ka badan 2.2 milyan oo qof, iyadoo ku dhowaad 90% u codeeyeen madax-bannaani. Laakiin dowladda dhexe ee Spain oo uu markaas hogaaminayay ra'iisul wasaare Mariano Rajoy waxay sheegtay in aragtidaas ay tahay mid sharci darro ah. Ciidamada booliiska ayaa xitaa isku dayay inay joojiyaan aftida, taasoo keentay rabshado iyo dhaawacyo badan. Kadib, baarlamaankii Catalonia ayaa 27 Oktoobar 2017 ku dhawaaqay madax-bannaani si degdeg ah. Dowladda Spainna waxay kala dirtay dowladdii Catalonia, waxaana xabsiga dhigtay qaar ka mid ah hogaamiyayaashii gobolkaas. Carles Puigdemont isagu wuu baxsaday oo ahaa hogaamiyihii aftida sanadii 2017, wuxuuna magangelyo siyaasadeed ka helay dalka Belgium. Catalonia weli waa qayb ka mid ah Spain, laakiin weli waxaa jira xiisad siyaasadeed oo u dhexeysa dadka doonaya madax-bannaani iyo kuwa raba inay Spain ku sii jiraan. Maamulka hadda jira ee Catalonia waxa uu ku doodaa inuu helo afti sharci ah oo lagu go'aamin karo mustaqbalka gobolka, balse arrintaas weli ma helin oggolaanshaha dowladda dhexe ee Spain. Catalonia waa dhul leh taariikh dheer, dhaqaale xoog leh iyo dhaqan gaar ah oo dadka degan ay aad u jecel yihiin. Xiisadda madax-bannaanida ayaa weli ah arrin xasaasi ah oo saameynaysa siyaasadda Spain oo dhan.
inkastoo aftidii 2017 la aqoonsan, haddana waxay muujisay sida uu u xooggan yahay dareenka dadka reer Catalonia ee doonaya inay iyagu go'aansadaan mustaqbalkooda. La soco muuqaalada xiga daawade oo ku soo biir boggeena.